bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan si walba muuqaygadiisoo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka fanka iyo sugaanta telefishinka galmudug xaruntiisa stuudiyo uu ku leeyahay magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle barnaamijka fanka iyo sugaanta waxaa martigu ah jibriil cabdulqaadir jibriil joker loo yaqaanay iyo weliba maxamed axmed diite boy waxaan wax ka weydiin doonaa taariikh faneedkooda bal magacaada iyo taariikh nololeedkaada waxaad u sharaxdaa dadka ku daawanaya awalan marka hore waxaan salaamayaa TV-ga ragga jooga shaqaalaha TV-ga saxaafadda meel walba ay joogaan ثانيا mid labaad anigu magacayga waa jibriil joker baa la dhahaa runtii fankayga taariikh faneedkayga ma ahan wax la soo koobi karo horta ma soo koobi karayo maxaa yeelay taariikh faneedkayga waa taariikh aad u dheer oo anigu waxaan ku soo biiray fanka oo aan ku soo biiray 2010 muddo 8 sano ah ayaan waxaan ahay nin fanaan ah oo marka inta badan marka jecel fankiisana aad u jecel oo ku kalsoon mid labaad fankayga waxaan ahaa iraanteeda baan fanka maxay ahayd aan aad u jeclaan jiray anigu yar baan jeclaan jiray oo waxaan ahaa nin fanka aad u jecel markaan iskuulka aan dhiganayo kale marka la soo deeyo waxaan ciyaalka bareeg markay ku mashquuliyeen anigana heeso baan qaadan jiray oo heesaha iyo waxyaabaas baan isku inaan qaadan jeclaan jiray marka hadda waxaan kasana aan dareensanahay inaan fankayga maasha Allah weyn aan xoogaa micnaha uu hor u sii socdo aad iyo aad maasantahay dib ayaan kugu soo laaban doonaa bal ku soo dhawow maxamed axmed diite boy wiil boqortooye ku soo dhawow telefishinka galmudug aad iyo aad waa maasantahay walaalkay dhammaan shaqaalaha TV-ga waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayaa anigu magacaygu waa maxamed axmed diite sida hore u maqasheen fanka waxaan soo galay 2014 fanka ku soo biiray asiiqada soo saaray hamigii ku soo galay adi waxaan ogaaday ama aan soo saaray heeso 2016 marka 14 waxaan ku soo galay hamigiga ahaadee waan waday 2016 aan heeso soo saaray oo heeso aan leeyahay alla kuma darnaad muddadaas aan ku jiray fanka waxaan gudagali doonaa heesta daafurka bal jibriilow aan ku horeyno heesta aad maanta ugu tala gashay barnaamijka fanka iyo sugaanta ee telefishinka galmudug heesta aan ku daafuro doono magaceeda wuxuu noqon doonaa baadigob waan gartay baadigob erayada iyo laxanka iyo muusiga cidda leh noo sheegi horta baadigob erayada waxaa iskale nin aad aan u jeclaa saaxiibkayga marne oo abwaankayga erayada waxaa iskale abwaan cabdullaahi maxamed xaaji ciise wuxuu ku magac dheer yahay cabdulla shamuuri waan marne waa saaxiibkayga marne waa abwaankayga marka heesta baadigob baa la aan ku daafuro doonaa muusigada waxaa sameeyey al-ustaad عبد العزيز الأزل أسمي موسيقى لحن كانوا حصار عني جبريل جوكر جبريل جوكر لحن صارت بل داودياش السي كل داودان بل إنه يقولوا في هيستا بعد الجوب هيستو حالي ذا محان بريء يقل بيت بعد ذا رات شيء وهاي بل أيضا موسيقى سن أيان دقيستياش اللي داون دونا
sadona mabaqan waligay bixisada jacaylku ayda aan ku qabo gorman kabugu sadona
waxbaa ka dhacay jibriil heesta anaga dhan naga ruuxisay bishaaraad u tahay naftu balbalkaagu waa sidee maxaa loo qaaday ujeedadeedu maxay tahay heestaas horta waxaa sameeyey abwaanka ujeedada loo qaadanne kulley waxaan u malaynayaa wiil micnaha marka oo saaxiiba ah oo isku xaafad aan nahay bay qiso yaab leh qabsatay marka qisadii waxay ahayd qiso micnaha markaas jacayl ah gabadhii baa inaa iska baxday baadideeda la waayay micnaha meel ay ka soo hadasho mataarib bay aaday oo maxay dalkii may joogtaa waxa waaye wiilku waa qasmay marka wuxuu yidhi marka arrinkan baa i haysto dhibkan baa i haysto marka waxaan rabaa inaan heesta leega sameeyo bal maadaama abwaan iyo fanaaniin aad tihiin oo waxaan rabaa in heestaas soo qaad jibriil jookero marka abwaanka baa aniga ula imaaday cabdullaahi baan ula imaaday abwaankii baa heesta saas u sameeyay arayadeeda bishaaraad abtooy naftiyo bal markaad waa sidee minaa boqor ha iska dhigin boqor ha iska dhigin la safta baraarihiisa bal bishaaraad u tahay naftiyo bal markaa micnaha waa sidee micnaha dhankaada adigu oo jacaylka ku haya mise qof la waayay oo waxaad sheegtay in la waayay qof la waayay heesta loo qaaday maadaama la waayay boqor ha iska dhigin qof joogo oo markaa jacaylkaaga diidan ayaa la dhihi karaa boqor ha iska dhigin maxay ku imaatay marka boqor ha iska dhigin boqor ha iska dhigin waxay ku imaaday micnaha heesta maadaama kii maxay qofka micnaha asaga abwaanka wuxuu ka soo qaaday inay asaga gabadh inay jacashahay ina kale waa kala gabadhaas inuu wiilka jacashahay ina kale waa kala sheega waay marka qofkii baadida lama haayo jacaylkana wuu jiraa qofkiina qofka kale wuu jecel yahay marka boqor ha iska dhigin la safta micnaha qof iga dhuumanayo camal qof dhuumanayo isla weyn oo kale oo isla weyn baa loo maleeyay qofka u maleeyay marka wiilka ma fahanti waa gartay aad iyo aad maasantahay dib ayaan kugu soo laaban doonaa maxamed axmed diite wiil boqortooyo aad bal waxaan rabnaa heesta daafurka adna inaad dhageystay daawadayaasha iyo madadka ku dhageysanaya inaad nala wadaagto magaceeda heeskan waxaa la dhahaa raxme sharaf waxaa sameeyey abwaankayga qaaliga ah abwaan saacid cadow abu axlaam laxanku waxaa saaray abshir gaarane axmed nin la dhahayo dhaxamra xamad degan oo saaxiibkay ah muusigada waxaa garaacayo abuukar yare heeskaana marka yaraan saaxiibanahay xaaskiisa ugu talagalay oo aan u qaaday waan gartay bal ayadoo bilaa muusig ah codkaaga shankaroontii dumarkay sharaftii galgacalkay shankaroontii dumarkay sharaftii galgacalkay raxmawaad ii shaafisee hashidoogin weligaa waan gartay aad iyo aad maasan tahay bal ayadoo muusig ayaan daawadayaasha daawadsiin doonaa شن محصايفتيمو شافيي نبتيدو جحلي بوشيداتهاي شمسي حريدي شن محصايفتيمو شافيي نبتيدو جحلي بوشيداتهاي شنكرونتي دومركاي شرفتي قلقع حلكاي شنكرونتي دومركاي شرفتي قلقع حلكاي رحمة وادي شافي سي أشدو من وليقا شنكرونتي دومركاي شرفتي قلقع حلكاي شنكرونتي دومركاي شرفتي قلقع حلكاي رحمة وادي شافي سي أشدو من وليقا شراكدي جاعيلكاي أو إنسان كشيكتي شحذا نولو شيدي بات شرفي كابتن كيدي تغي رحمة شرف كابتن كيدي تغي
shurakadii jacaylkay haweentan ka sheegtay shaxda nolosheedii baad sharafay kabtankeedii tahay raxma sharaf kabtankeedii tahay shankii galay yarti lagu shabaayay shandada dhaqaala adan kugu dul shubaya shankii galay yarti lagu shabaayay shandada dhaqaala adan kugu dul shubaya shamsidii ilayskay marka shaashka xirato shamsidii ilayskay marka shaashka xirato sheekh dumarku darata xishqigu shakaashe shamsidii ilayskay marka shaashka xirato shamsidii ilayskay marka shaashka xirato sheekh dumarku darata xishqigu shakaashe shurakadii jacaylkay haweentan ka sheegtay shaxda nolosheedii baad sharafay kabtankeedii tahay raxma sharaf kabtankeedii tahay shurakadii jacaylkay haweentan ka sheegtay shaxda nolosheedii baad sharafay kabtankeedii tahay raxma sharaf kabtankeedii tahay raxma sharafteedii baa kabtankeedii tahay waxbaa ka dhacay maxaad erayada lalaga jeeday markii hore erayadan yaraan saaxiibanahay oo kaamirmaan ah maalin maalmaha ka mid ah aan is aragnay oo la kulmay markaasuu yidhahay niyo xaaskayga kolba inaa ii faanis rabaa waxaa weeye qisadeedu igu sheegtay xilliga intay isguursan ka hor hadda ciyaal bay u haysaayba intay isguursan ka hor arrimihii soo dhexmaray jacaylkoodii uu iga sheekeeyey wuxuu dhahay niyo heesna igu samaysaan rabaa waxaan u tagay abwaankeyga abwaan saacid cabdo abu axlaam waan u sheegay arrintii waxaan dhahay ninkaa jire bal wax ka dheebo marka wuxuu dhahay shurakadii jacaylkaay haweentan ka sheegtahay shaxda nolosheeda baad sharafay kabtankeeda tahay adiga mooyo qof kale ma doonayo waa micnaheedu marka nafsadeeda kabtankeeda waa kabtankeeda tahay adaa hogaaminaya meesha aadisaan la aadaya waa tahay aad ma santahay bal aan u wareegno jibriil heestaadii labaad macnaheeda iyo waxa ay ku saabsan tahay heesta labaad aan qaadan doono waxaa la yidhahdaa xididgoyn oo xididkaa la goynayaa qof xiriirka jartay waa gartay aa loo sameeyey oo erayada iyo laxanka iyo erayada waxaa iskale abwaan cabdullaahi semey oo ku magac dheer baay semey laxankana aniga baa sameeyey waa gartay adiga jibriil joker waa muusigada waxaa isticmaal ustaad cabdicasiis alazan waa gartay garaaca muusiga bal ujeedada adigoo bilaa muusig cod hal mar ahaan waxaa la yidhahdaa xanaaqniyaa xaaja noqonaaye xubbigii aan ku qabay xiisihiisu taagan yahay waa gartay waxbaa ka dhacay bal iyadoo muusiga bal daawadayaasha han la daawadaan
xasuusna kalgacaylkii xawliga farxadii noloshayna xaggee baad ku xoortay kana keentay xidigoynta farxadii noloshayna xaggee baad ku xoortay kana keentay xidigoynta xiisihii jacaylkeena xanfarkaad raacisay xuural cayntii dunida xiisihii jacaylkeena xanfarkaad raacisay farxadii noloshayna xaggee baad ku xoortay kana keentay xidigoynta farxadii noloshayna xaggee baad ku xoortay kana keentay xidigoynta 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 waa tahay waxbaa ka dhacay farxaddii nolosheena xaggee baad ku xoortay kana keentay xidigoynta kaga keentay xidigoynta erayo aad u macaana ku jiray wax xal lagu waayay oo kale iyo bal macnaheeda bal inoo sheeg erayadaas macnaha gabadhu iyo wiilka xoogaa waxaa ka dhexeeyay jacayl aad u weyn marka hadday timaado macnaha intaas lacagaan kaa raba ya haddana intaa lacag isiineen heesta macnaha qasab badan ay ku aruursan abwaankana aad buu inshaalay aad buu u sameeyay masha Allah heesta qasab badan ay wadataa taasoo ka mid ah hadda farxadda nolosha xal wax lagu waayay qofka lagu muxjiyo adiguna xasuusnaa kala gacalkii xawliga macnaha xal wax lagu waayay macnaha wax oo ilaa xagiis laga waayay qofka in lagu xujiyo ma aha macnaha lacag intaas oo lacag ka raba intaas dhaqaalan ka raba haddaadan ahayn aniga adiga waxba macnaha naga ma dhixin doono marka waxa laga wadaa marka xal wax lagu waayay qofka lagu muxjiyo adigana xasuusnaa kala gacalkii xawliga jacaylka naga dhixay bal xasuusnaa way macnaha waa gartay qisada ma adeeg kugu dhacday mis qof kale
qisada aniga ugu dhacday adiga laftirkaada waa gartay qisada aniga ugu dhacday aniga aad ii saameysay aad waa mahadsan tahay bal Dita Boy aad iyo aad heeskan aan idiin wado aan bulshada dhahayo dee ha kula baashaalaan waxaa la dhahaa maxaan dambiyun sameeyey waa qof aad xiriir hore nigal dhexeeyo kale qadac niga dhex martay aad dhahaysaa maxaan sameeyey dambi erayada iyo laxanka erayada waxaa iska leh abwaanka weyn ugaaska ummadda Soomaaliyeed aan filaya hadda Muqdisho inuu ku sugan yahay laxanka iyo muusigada waxaa saaray Xamaad Al-Casal muusigada iyo laxanka baas ayagaa iska leh waan gartay bal iyadoo bilaa muusiga in lagu dhafo naftaydu hadday ku doontay dadkaba adika jeclaatay weliba duqeedii noqotay maxaan dambiyon sameeyey waa tahay bal nala daawada iyadoo muusig saaran heestaasi uu ku luuqeynayo Dita Boy wiil boqortooyo naftaydu hadday ku doontay dadkaba adika jeclaatay weliba dooqeedii noqotay maxaan dambiyon sameeyey naftaydu hadday ku doontay dadkaba adika jeclaatay weliba dooqeedii noqotay maxaan dambiyon sameeyey taralle maxaad igu diiday maxaad dibintaab ya keenay ishaa kugu doogsanaysay taralle maxaad igu diiday maxaad dibintaab ya keenay ishaa kugu doogsanaysay dawooy nafsiyu hadhow wiilkii kooran dantoon wiilkii kooran dawooy nafsiyu hadhow dantoon wiilkii kooran dantoon wiilkii kooran naftaydu hadday ku damacday dumar adika danaysay oo ay weelka dalbayso maxaan dambiyon sameeyey naftaydu hadday ku damacday dumar adika danaysay oo ay weelka dalbayso maxaan dambiyon sameeyey taralle maxaad igu diiday maxaad dibintaab ya keenay ishaa kugu doogsanaysay taralle maxaad igu diiday maxaad dibintaab ya keenay ishaa kugu doogsanaysay dawooy nafsiyu hadhow dantoon wiilkii kooran dantoon wiilkii kooran
waa tahay heestaas nafyay hadhow wiil kuyo dondoon ku oran dawoy nafsigiiyo hadhow wiilkii dondoon ku oran macnaha hadda isma macnaynaysa hadhow kaloo jacaylkii waxay dib usoo xasuusanaysaano markaas galgacaylkii dhahayo jacaylkii nafsigii inimkii doonba jiitihii doon heesta maaday ku saameynaysaa kugu dhacday mise qof kale heeskan waa hees lay dhiibay fanaanada weyn oo aan halkan ka salaamayo oo salaan kaliilaab u dirayo nadar maxamed cilmi oo ah qofka injoraydka iyo dhiirigelinta isiiyey oo dhahay dee dadaal fanka ku dadaal oo heerkan hadda maray iyo heerka kale dee aan jeclahay inaan ka gaaro fanka igu dhiirigeliyey oo halkan ka salaamaya ayaa ii dhiibtay heeska abwaanka ummadda Soomaaliyeed habeen isla joognay ahayd aad maasantahay jibriil waxaan filayaa daawadayaashu inaad saddex hees u ballan qaaday heestaadii kugu dambeysay ee barnaamijka fanka iyo suugaanta telefishinka galmudug bal maxay noqonaysaa aan ugu talagalay waxa la yiraahdaa saanteeda waan dhigay haye saanteeda waan dhigay waxaan rabay inaan safaro oo safaran aado marka maadaama safaran aan rabay waxaan Soomaaliya iska dhaxay wadankayga baan joogay ma baxay saanteeda waan dhigay ereyada iyo laxanka ereyada waxa iska leh abwaan Umar Maxamed Cali Maanji ereyada iska leh asaas sameeyay laxankana waxa saaray abwaan Cabdullah saaray laxanka oo ku magac dheer Cabdul Shamuuri muusigana waxa sameeyay atumay istaadka Al-Azal Abdulaziz Al-Azal bal bila cod iyo bila muusigeedo ay noogu dhufo heestu waxa la yiraahdaa xilliga siduu yahay adna aad simantahay samaya barwaqiyo saadaashu waa qayr waxuna lama sami karo isma saamo waa gartay bal iyadoo music saaran daawadayaasha ahna la daawadanayaan leeyahay
saytuun baan cunaya sixin baan cabaya soorti caanaheediyo nabadaan ku seexdaa dagaalkii sokeeyaha iyo silicii la soo maray samintii awaara rabbino ma soo noqo dagaalkii sokeeyaha iyo silicii la soo maray samintii awaara rabbino ma soo noqo sawulkii galaydahayo sisintii camba saaqlayda digirtaan cunaya sawulkii galaydahayo sisintii camba saaqlayda digirtaan cunaya Somaliland jooga saytuun baan cunaya sixin baan cabaya soorti caanaheediyo nabadaan ku seexdaa saytuun baan cunaya sixin baan cabaya soorti caanaheediyo nabadaan ku seexdaa Somaliland jooga saytuun baan cunaya sixin baan cabaya soorti caanaheediyo nabadaan ku seexdaa waa tahay heesta Soomaaliland dhex jooga saytuunka cunaya soortii caanaha sixin baan cabaya Soomaaliland dhex jooga saytuun baan cunaya sixin baan cabaya soortii caanaheediyo nabadaan ku seexdaa soortii caanaheedan isku cunaya nabadaan iskaga seexana bas waa iska joogaa safarkii aan rabay waa ka joogay safar baan aaday inaan baxbaaray marka xoogaa dagaalka sokeeyaha iyo waxas baan nacay oo aad aan u kiraasan meelaha dagaal sokeeya baa dhacay bilo la dilay inta laga bixiyay waxas baan nacay waxas ma Soomaali iskaga tagtay oo meelaha fankaad waxas meelaha ma adduunka iska daawo taas baan isdhahay marka xoogaa marka waxa dhacday doorasho baa dhacday oo isbedel baa dhacay marka xasloon dagaalkii sokeeyaa ilaahay noo soo celiyay ilaahay noo soo celiyay isticmaalaa waxa socday markaas abaar zaid baa socotay oo markaan dhahayo abaartii iyo waxyaabo aan ka sheekeynayo abaaraa socotay ilaahay rabbina noo soo celiyay marka waa tahay aad iyo aad maasan tahay gabagabadii ayaan isla soo gaarnay Dita Boy adigana bal ka waran daawayaasha ku daawanaya
dadka taageerada ku ah dadka hadda kadib taageerada ku noqonaya aad iyo aad dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida isku wada xiran yihiin ha ahaadaan kuwa dibadda jooga Soomaalida ha ahaadaan kuwa Soomaali jooga kuwa Jowhar la jooga degmada jooga dhammaan wada salaamaya taageerayaasheeda inta cusub inta hadda ay taageerto inta fankeyga jecel dhammaan gabi ahaanba salaanta ummadda Soomaaliyeed salaanta islaamka aan ku salaamaya fursada ka faa'iideysanaya yaad salaamaysaa wallahi horta salaan waxaan horta awalan salaamaya aad ugu jeclahay aan si dhab u jeclahay hooyaday Xaasmaan Muuse ثانيا waxaan salaamaya idaacadda shaqaalaha idaacadda marka wari saxaafadda fiyaasha mid labaad waxaan salaamayaa guud ahaan Soomaaliya iyo inta muslim joogto adduunka iyo magaalo intaba saas baan salaamayaa waxaan leeyahay marka salaam waxaan aad iyo maasan tahay waxay ahaayeen Jibriil Cabdulqaadir Jibriil Joker iyo waliba Maxamed Axmed Diite wiil boqortooyo barnaamijka fanka iyo suugaanta telefishinka Galmudug idinkaga imaanayay ay kala qayb qaateen barnaamijka waxa idinkaga imaanayay xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana barnaamijka idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa inta barnaamijka ku kulmeen waxa idin leeyahay sidaas iyo nabad galiyo